بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى waxaynu saaka bilaabi doonaa kitaabkeenan cumdatu saalik. waxaynu insha allahu in yar tilmaami doonaa sheekha kitaabka qoray waynu horta wax yar ka tilmaano wey, maadaama kitaabkiisi aynu akhrisanayno. waana muhiim qofku inuu kitaabku akhriyayo oo akhrisanayo inuu ogaado sheekhiisa ama sheekha kitaabkaasi iska leh iyo cidda uu yahay. sheekha waxaa la yidhaahdaa shihaabudiin abulcabaas axmed ibnu lulu ibnu cabdillaah الرومي المصري الشافعي. wuxuu macruuf ku ahaa oo lagu yaqaanay ama uu ku magac dheeraa ibnu naqiib almisri. ibnu naqiib baa loo yaqaana. marka waxaad arkaysaa iyadoo lasoo gaabinayo oo magaciisi oo la odhanayo ibnu naqiib, laakiin kunyadiisu waa abulcabaas, magaciisuna waa axmed ibnu lulu ibnu cabdillaah. arumi marka la yidhi aabihii wuxuu ahaa rumi min nasaara antakiya, nasaarada deganeyd antakiya meeshii la odhanayay ayaa uu ahaa aabihii. marka maadaama oo xagga uu kasoo jeedo arumi, saasaa loogu nisbeeyey. masrna waa deganaa almisri, saasaa iyadana loogu nisbeeyey masr. marka aabihii waa lasoo qafaashay, dabeetana umaradii waktigaasi joogtay qaar ka mida ayaa markaasi qaatay. waa aabihii weeyaan, sheekha aabihii. isaga oo yar bay markaa qaateen, waa markii lasoo qafaashay. ninka amiirka ah ee hayay waxa uu ku dadaalay inuu tarbiyadeeyo, hagaajiyo, uu ku tarbiyadeeyo islaamka. dabeetna markii dambe waa xoray, waxaana uu deganaa qaahira, wadanka masar ayaa uu deganaa, halkaasuu degay. waxa uu shaqayn jiray markaa umarada qaar ka mid a, naqiibuuha, saasaa waxa loogu bixiyey naqiib, ibnu naqiib. naqiib aabihii baa la odhanayay. marka sheekhaynu raximah llahu tacaala waxa uu dhashay sanadii 702 hijiriyada, 702 hijiriyada ayaa uu dhashay. wuxuuna ku dhashay qaahira, oo dee aabihii uu deganaa, oo ku barbaaray, kuna weynaaday. wanashaa cala alطaacati walcibaada, waxaanu ku barbaaray aacada iyo cibaadada ayuu ku barbaaray. waxaa la jeclaysiiye uu jeclaaday qur-aanka xifdigiisa, qur-aanka ayuu xifdiyey. markii ugu horreysay wixii ugu horreysay u qabtay waxay ahayd inuu qur-aanka xifdiyo. dabeetna cilmigii ayuu u go-ay, faاshtagala bihi wahuwa ibnu 20 sana. isagoo 20 jira ayuu cilmiga bilaabay, kuna mashquulay. wuxuu qur-aankii dhameeyey oo xifdiyey
iyo qiraa'adkiisii. waxa kale uu bartay intaas u raacsanay farsamo uu ku shaqaystana wuu bartay, farsamo yaqaannimo uu ku shaqaysto iyadana waa bartay oo waa ku shaqaysanayay. culimmada wuxuu ka qaatay qaarkood cilmiga xadiidka, qaarna wuxuu ka qaatay cilmiga fiqiga, qaarna wuxuu ka qaatay cilmiga carabiyada ayuu ka qaatay. waana dadaal ilaa uu aada iyo aada ugu caan baxay ama aada iyo aada ugu bartay oo kuna talax tegay intaasi culimmada uu kala kulmay, hadday tahay xadiidka, hadday tahay qur-aanka iyo qiraa'aadka, hadday tahay fiqhiga, hadday tahay tafsiirka, hadday tahay culumtii carabiyada, hadday tahay adabka. in fara badan ayuu aada ugu dadaalay, wuxuuna ku noqday dadka aadka loogu tilmaamo ee xariifka ku ah ayuu ka mid noqday. sheekhu raximah llahu tacaala sida culimmada qaar ka mid ah ay u qabteen qadaaga iyo xukunka, isagu muu qabanin. waxaa la yidhi waraciisa iyo xalaal miiradkiisa waxaa ka mid a laa yaktubu calaa futya, fatwada muu qori jirin, wax fatwo ah muu qori jirin baa la yidhi. dadka waxbuu u dhigi jiray oo madrasad alxisaamiya iyo madrasad kale loo nasay almadrasat alashrafiya, labadaas madrasadoodba waxbuu ka dhigay oo wuxuu ka ahaa sheekh buu ka ahaa. waxaana ku intifaacay dad fara badan, waxaana ka soo baxay dad badan oo culimo ayaa ka soo baxay. imaamna waa noqday oo masjid ayuu wuxuu ka ahaa imaam. waxay isku waqti ahaayeen, saaxiibnay ahaayeen sheekhii la odhan jiray jamaaluddiin alisnawi ayay isku waqti ahaayeen. sifooyinka uu lahaa waxaa lagu tilmaamay sifooyin aada u wanaagsan inuu lahaa raximah llahu tacaala. waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa shadiid lwarac, xalaal miiradka in aada u xalaal miirad badan inuu ahaa. waxaa kale lagu tilmaamay adduunyada qof iskaga zaahiday inuu ahaa, cadiim azuhd oo khushuuc badan oo mutawaadica oo dadka aan si kibrinin, samafal badan oo galgacayl badan, dadka xuquuqdoodana u guda, hadday saaxiibadii tahay iyo haddii aqaaribtiisii tahayba. welibana aada iyo aadna dadka u ziyaartay oo ziyaarada badiya qaaribtiisa iyo saaxiibadii ziyaarta ayuu ahaa baa layidhi. xagga nasaaixdana wuxuu ahaa kathiira nusx, qofka hadduu ku arko qalad waa u naseexaynay, waxbuu sheegay. sidoo kale wanaag hadduu doono qofku wanaag buu sheegay, marka wanaaggii iyo xumaanta, wanaaggana waa u sheegay, xumaantana waa ka reebay. dadka aada buu ugu nasteexaynay. xagga qur-aanka waxaa la yidhi wuxuu ahaa markii ugu horeysa mar hadduu qur-aankii xifdiyey, imaamna masaajidku ka noqday, qur-aanka aada buu ugu fiicnaa, sawdkiisuna aada buu qurux badnaa baa la yidhi, xasuna sawt, dadka codka wanaagsan ayuu ahaa. waxaanad garanayseen qofku markuu qur-aanka ku wanaagsan yahay ee codkiisana uu fiican yahay, imaamna uu yahay masaajid uu tukanayo, sida bisha rabadaan iyo taraawiixdii oo kale, dadka in aada ugu imanayaan. marka waxaa la yidhi waa aada baa loogu iman jiray
masaajidkaasi ama halkaa ku tukanay ee dadka ku tukanay quraankiisaasi waa la soo doonan jiray si loo dhageysto bisha Ramadaan siiba habeenada Ramadaanka dadka muslimiinta masaalixdooda waa ka shaqeyn jiray inuu masaalixdooda baahiyahoodan inuu gudo ayuu aad ugu dadaali jiray xajka aad buu tagi jiray leeyahay dadka jaarkaana wuu fiicnaa aad buu cilmiga ugu mashquulsanaa waqtigiisa waxa ay cibaado iyo cilmi masaajidkaasi imaamka uu ka ahaa waa ka khudbadeen khatibna waa waxa marka sheekh rahimahullahu ta'ala waxyaa fara badan ayaa ku kulmay sheekha weynay saaxiibka ahaayeen Jamaaluddin al-Isnawi al-Oranay wuxuu la a'lamu fi ahli al-ilm man ishtamala ala sifatihi wala ala akthariha sifooyinka wanaagsan oo lahaay farax badan leh culimadu kuma garanay bil qof ay ku kulmeen ama intooda badan ay ku kulmeen inta ay soo tilmaamay qof ay ku wada kulantay anu garanay buuri ama in far badan oo kamid ah ay ku kulmeen culimo fara badan ayuu cilmiga ka qaatay oo culimada waqtigiisii noolaay culimadaasi san hore soo tilmaanay qaar ku ka qaatay cilmiga xadiisi qaarna cilmiga luqada iyo cilmiga fiqiga bari horena culimadu wadankii joogaan inta culimada kala kulmaan ay ka qaataan cilmiga ka bartaan ayaa ay hadana wadanada kale culimada joogto u tagi jireen oo ka soo qaadan jireen way wareegi jireen waxayna u bixi jireen kaliya waxa cilmiga kaliya si ay ku soo bartaan ayay u bixi jireen oo u wareegi jireen sheekheenu markaasi isagu nasiib weyn buu yeeshay inuu culimo fara badan oo waliba ku wadankiisa deganaa inuu aad ula kulmo waxna uu ka qaatay masar nooxay ahayd meelihii cilmiga wada imaam shaafici rahimahullah ayaa deganaa culimo fara badan baa markaas halkaa iyadoo ka soo baxday oo diinkana uu gargaaray wax badanna dadka markaasi anfacay mashaayikhdiisa haddaba kuwa caanka ah haddaynu wax ka tilmaano waxaa ka mid ahaa sheekha mufasirka ah ee loo yaqaano Abu Hayyan al-Andalusi محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان وحانا معروف كيه أبو حيان الأندلسي مشايخي سيو كمدها وحانا وكقعت علم قراءتك كتب بدن ولا شيخ خاصي كتاب تفسير عانب ليه وحي البحر المحيط وحكى لك كمدها علماء علم وكقاتي شيخ الأوراني علي بن عبد الله بن الحسن ابن أبي الحسن ابن أبي بكر أبو الحسن تاج الدين التبريزي وعلماء وونا شافعية كم ذا سجنا علم جايو كقاتي وحكى لكم ذا مشايخ ليس الرجل يقانون كم ذا شيخ الأوراني علي بن عبد الكافي ابن علي تقي الدين السبكي يا يسقون كمذا يرق فربنا كلا كوان تلمان ورق وعن سنويا أما لا يقان طلعت العلم أنت بدنا يقانا لكن رق بدنا كلا يجنا ولا كرم الشيخ رحمه الله تعالى يسقون ما دام أو ما لا يوفر بدنا وحكاري وعلمك وآخري جري سجل لفتي سنة وحوي شيء أرضي فربضن أو حكى قارتي أيا ولي أرضي راسي وحنا تلمام إنهم كوا وعنص يلا يقام وحا كم إذا شيخي لولني عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن أبو الفضل زين الدين العراقي
وكم قاعدين هاي عراقي بالورن شري شيخ عاصي رحمه الله تعالى مشايخ دي واوينا علمي أياء أها وحنا الشيخوها ابن حجر العسقلاني حافظك الحافظ ابن حجر مشايخ دي سيكمدها الحافظ العراقي كتابك ألفية حديث كان والي وألفية مصطلح الحديث كان ألفية السيوطي ما هي ككله وكسيوط ورنا يا مركو ألفيه سام وما ركتي كورمي حقه هره وألفيه أماني فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق فائقة ألفية العراقي ألفية ذي وحي كون أكسنتها يكسر رئيسا ألفية العراقي وكان شيخ عراقي أيا شيخي إن كتابك سينبراني أرديدي سمركاسي كميدها وشيخنا شيخوها وعكر أيضا كميدا شيخ وين كتابك كتب حديث كآت كمركا حوا قري محدث كآ لورني نور الدين الهيثمي إساقنا وحو كميدها أرديدي سيايو كميدها وعكر أيضا كميدها شيخ أين صوت المعني الحافظ العراقي إنن كيسي واسم الشيخ وينها ولورن شري أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم ولي الدين العراقي أي إسقنا وحققات الشيخين أي وحققات إسقنا وحكى لكم إذا إسقنا الشيخ هذا المحلي شمس الدين المحلي الأنصاري وسنع علمدي وونيد كمدها أي سنة أرديدي كمدها من هاتي نوع كله شرح شخاصي علمي وين يقارب بدن وكر يا أرضي ونوضي وحكسو برتي قصاقاتي وحكت سنة ما كان شيخي إن علمي يسو يوناق ولها أي كنت سنة شيخ كتب بدن بقري كتب تاسو قري قارن ودميستري قارن مركز ما ودميسترين كتبتي ساسو waxa uu caansan kan inuu taxadayno hayno oo cumdatu saaliga waxa kale kamida kutubtiisa aad ka caanka laguna intifaacay nafciga farax badan leh kitaabka uu bixiyay as-siraj fi nukat al-minhaj kitaabka minhajka Imam an-Nawawi rahimahullah ayaa uu markaas u sharxay nukat buu ku sameeyay وحنا لو قلت لهم كتاب قاسمي هي كثيرة الفوائد إنه يهي نكت قاسمي فوائد كيسي فائدة كجرت آد فربان تحي وانا كتاب للضابعين والدابعين كتب فربان كلام واو قارخو دانو نميستري الشيخ رحمه الله وحاول انتي بشي رمضان سندي تضوبقل يسقالي اللحظة كي هجرية تضوبقل يسقالي اللحظة مركي تاريخ ذا هذه هجرية أياه بنتي رحمه الله تعالى وحانا أصيبي عذرك الطاعون كاليرها يا قداعي مقالي يسيو كل شيء قاهرة هيد يانا وكل انت سقو شهيدة محتسبة وقفك الطاعون كدلو وشهيد مكعودك الطاعون كدلو رحمه الله تعالى رحمة واسعة sidaas ayaa uu ahaa sheekhu raximahullah iyo sifooyin fara badan iyo taariikh badan oo kale uu leeyahay oo aan ka tagnay oo aynu kusoo urursanay intaas kitaabkiisani waa kitaab aad iyo aad u wanaagsan si fiicanna waa u qoran waan arki doona insha allah kitaabku marka dhinaca laga eego waa mukhtasar dhinaca kale marka laga eegana waa kitaab ballaaran oo weyn oo nafci far badan leh kulli waqtina uu qaadan doona kitaabkan
muhiimadda uu leeyahay culimo fara badan baa markaa sharaxday oo tixgelin badan siisay, qaar sharaxoodu daabacan yahay iyo qaar una daabacnaynba. waxay ku tusinaysaa markaa sidai culimmadu u tixgeliyeen kitaabkan una aqriyeen, dadkana ay ugu sharxeen. marka waa kitaab nafci badan. ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inagu anfaco, kuwii ku intifaaca ee bartay fahmaa ilaahay uu naga yeelo. laakiin wuxuu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay, qofku inuu sabro oo auna ka daalin ayuu u baahan yahay. sidoo kale wuxuu u baahan yahay in la akriyo oo la isku dayo in la xifdiyo, in la fahmo oo la xifdiyo oo hoos lagu dhaadhaco, aan keliya noqonin inta la dhegeysto dabeetana uu kitaabkii laisku laabo laga tago maalinta dambe un haddana la soo qaato. wuxuu u baahan yahay aqrin fara badan, matniga marka hore la akriyo, la fahmo. qofka hadduu sharax haysto, sharaxa uu la daalacdo, ku akriyo, meelaha fawaaidka faa'iidada ku jirto uu si gaara u calaamadsado. faa'iidada waa la calaamadiyaa. calaamaddu faa'iidada leedahay waxa weeyaan haddaad marka hore xifdido dusha ka qabatid waxaa laga yaabaa wiilka bacdan iska ilowdid, laakiin markaad calaamadaysid dib baad ugu noqon, haddana halkaad calaamadisay haddana waad ku noqoni, haddana waad ku noqoni, dabeetana kaa hallaabi mayso. haddaad ilowdidba dib baad ugu noqon, laakiin markaad ilowdid haddaad salaa meesha dib ugu noqon meesha waad garan waaysaaba. marka iyadana waa la calaamadiyaa. marka insha allah waynu ku dadaali doonaa. shuraaxdiisa kole waxa ugu fiican oo uguna caansan kitaabka faydul ilaha la yidhaahdo. kitaabkaas ayaa ugu caansan. waxaana qoray sheekha la yidhaahdo cumar ibnu maxamed albuqaaci oo reer sham buu ahaa. kitaabka faydul ilaah ayaa ugu caansan. laakiin waxaa jira kutub kala jira isaga ayaguna anwaarul masaalik kitaabka la yidhaahdo uu qoray maxamed az-zuhri al-ghamraawi, alfaadii buu furfuraya isaguna, waxaa la anwaarul masaalik. kitaab kale aada ballaaran baa jira oo nin sheekho etoobiyahana baa qoray, dhawaana waa la daawaco, magaalada uu weli jiray horta ana ogaalkay. waxaana la yidhaahdaa kitaabka fatxul masaalik. 7 mujalladood buu ka dhigay, adiladu aada ugu fara badiyay iyo khilaafka culimada. qofka akhrisan karaya kitaabkaas inuu fiican. haddii aynu muqadimada akhrino, sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu yidhi الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. culimadu waxay ku furaan kitaabkooda, waxay ku furaan bisinka iyo xamdiga, waxayna ugu furaan xadiid la soo wariyey كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. رواية كلنا وحويان بحمد الله. حمدي قام بسم كان الغفران وأقطع وي ومتك لقوا وي أما هو أكثر من دبقوا وي. هو حديث كاس أنت بدن ودل الشذا، لكن حديثك هو ضعيف سند كيس ما صحيح. حديث صحيح ما waxaa ka fiican in la yidhaahdo waxaa xamdiga u fureen kitaabka qur-aanka waxaa lagu furay suurat lfaatixa, waxaa kale lagu furay bisinka oo faatixada de bisinkii baa lagu bilaabay.
إلهي نحول اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق مركا اقتداء بالكتاب العزيز كاسوا مد وحكى لآيين اللي دليشنا ودليلون غني رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مركو ورقدها وقري يمركو خطبتين يوم وحكو بلا بجري حمدك يا أمانت إلهي وأماني يكون بلا بجري ساسا مركا يقولنا وبلا بين علماء كتبته الحمد جنسي ما هذه لله رب العالمين لله إلهي بوسغناين جنسي ما هذا أردن إلهي بوسغن يهي أسكله رب العالمين عالمين تربكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا لهم معنا بوالي معناها الرحمة قالوا معني وان حريص صلى الله إلهي هون حريصته معناها كلا عنك السلف كي الصالحة أنا يكون معنيين بخاري وسوري وحويان إن تهاي صلوا أمركم من الله وحويان ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم وأمان وكإلهي ها أمان في الملأ الأعلى رسول كيس لبضى معنا ولو معنيك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشيخ رسولك وكسلي آل كيسين وكسلي صحابتي سين وكسلي انت وانا سأقول في عنه إن سراعي صدح له آل كي وصحابة إيو رسولك صلى الله عليه وسلم وحلو بعد انتهى دبدين فهذا كتاب كان مختصر وكتاب لسوقابي على مذهب الإمام الشافعي إمام الشافعي مذهب كيسنا لقوسه دول قابي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه اقتصرت فيه بحديث وحانكو قابصدي على الصحيح كالراجحة ومن المذهب مذهب كمدة عند الرافعي أكتس الراجحة كؤة يوالنووي نووي أكتس الراجح كؤة أو أحدهما أمل لبدا بدكو الراجح كؤة وقد أذكر فيه خلافا إن شيء خلافا وقد أذكر فيه بحديث أنا كل شيء يا الله أركا خلافا أنا كل شيء واختيار قارك من الأركا وذلك أسنوحها هذه إذا اختلف تصحيحهما لبدو مركز ترجيح يتكلم ترجيحين المسائش اسكو خلافان مركز أيان أنا قلنا خلاف ينشي دونا مقدما حالان أحمد هرم مرنية لتصحيح النووي تصحيحيسا فيكون وحوهان دونا مقابله كاكا كسهور جيدا تصحيح رافعي تصحيحيسا ينقن دونا وسميته وحنكم مقعابي عمدة السالك وعدة الناسك والله أسأل أن ينفع به إلهي من ودي سنين نوانفعه وهو حسبي ونعم الوكيل أرد كتابك هو مختصر أرجع حنا شيء كتابك إنه كتاب مختصر يعني مختصر وكتاب نسوي جابي مختصر واحد هذا ما قل لفظه وكثر معناه مختصر ما قل لفظه وكثر معناه وكلف ذي سويري هاي الفاظ الاستعمالي وكوبي لكن معاني فربنا بحنبارسين هذا البلان اللي قولنا بهذا كيف فربنا لسوق كوبي هذا كان سوق كوبي معاني بدون بحنبارسين كاسة واحدة مختصر كتاب اسمه مختصر ياهي أو كتاب سوق كوبي وجابي هاي وهذا كل شيء وحكى لنا شيء طريقة كسعود حوالي طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه إمام الشافعي طريقة دي مذهب كيسي يوسيدو يهينا واختيار كلام نسكو دي دونينا نكشكينا إن شاء الله تعالى وحكى لنا شيء إنه كتاب كان وكو قابي هاي كليئون مسائشة كود الراجحة مذهب كالحديثة المذهب الحديثة مسائل بدن واحد جرى ضعيفة أما علماء يسكو خلافين marka inta raajixa ayaan ku gaabsaday buuri oo ay rajixeen labada imaam
labada imaam wakiya raafici iyo nawowi labada sheekh waxaa loo yaqaana ashaykhayn baa loo yaqaana waana labada sheekh ee madhabka imaam shaafici raximahullah wax weyn ka qabtay way kala hufeen xilligoodii madhabka sugnaadaba intii ka horeysay wuxuu ku jiray tatwiir iyo ayaa ku jiray iyo masaa'il fara badan la soo khilaafsan yahay oo aan kala rajaxnayn iyagu dabatana way kala hufeen ka raajixa iyo ka aan raajixa bay sheegeen aqwaashi bay sheegeen aqwaashi culimada shaafiiciyada iyo aqwaashi imaam shaafici ay markaas ay tilmaameen ka sawaabka ku jiro meelaha la soo khilaafsan yahay kooda raajixa bay sheegeen markay masaa'isha kala rajaxeen raafici baa horeeyay imaam nawawi waa ku xigay way madhabku waa sugnaaday marka mid sugan oo cagaha dhigtay buu noqday waqtiga qaarkood hadda waa iskhilaafayaan tarjiix isku khilaafayaan midba wuxuu rajaxaya sheekhu marka wuxuu yidhi waxaan anugu qaatay khilaafka waan sheegi doonaa waa marka ay labadooda tasxiix waa raajixa wey dad maqashay tasxiix waxaa lagala jeeda raajixa qowlka raajixa markay isku khilaafaan ayaan khilaafka sheegi doonaa anigoo hormarinaya welibana imaam nawawi raximah allahu tacaala hadalkiisa marka labada sheekh waxay isku raacaan waa kan cindaha wey waxaa kale ayadana hadday iskhilaafaan waxaa la horumariyey qowlka nawowi sababtuna wax kale maaha waxaan imaam nawowi raximah llah xadiidka ayuu ka yaqaanay imaam raafici oo imaam nawowi wuxuu ahaa muxadis bu ahaa walihaada masaa'il fara badan yaad arkaysa isagoo xagga daliilka u rajaxayo odhanaya masaladaasi waa raajix xagga daliilka marka la eego iyada xoog badan saas ugu hormariyey wuxuu sheekhu fahada kitaabkan mukhtasarun waa kitaab mukhtasar oo lagu soo gaabiyey calaa madhab alimaam shaaficiyi raximah llahu tacala waridwaanahu iqtasartu fiihi dhexdiisa waxaan ku gaabsaday cala asaxiixi qowlka raajixa ama ku gaabsaday oo min almadhab madhabka ka mida cinda raafici agtiisa iyo nawowiy aw axadihima ama midkood waqad adkuru fiihi khilaafan dhexdiisana ku sheegaa la arkaa khilaaf marka qad waa taqliil aad bay u yar tahay yani in badan sheegi maayo khilaafka mar buu sheegay marka inay xaalad naadira tahay ayuu tilmaamaya ama xaalad aad u yar inay tahay wadalika kaasna wuxuu ahaa ida ikhtalafa tasxiixuhuma tasxiixood markuu iskhilaafo tasxiix waxa raajixoodu tarjiixoodu markii kala rajaxaya markay iskhilaafaan muqadiman xaalaan mid hore marinaya litasxiixi nawowi tasxiixiisa mid hore marinaya yani hadalku rajaxay fayakun wuxuu ahaan doona kaan rajaxay muqaabiluhu fayakunu muqaabiluhu kaa muqaabilkiisu wuxuu noqon doonaa tasxiix raafici tasxiixiisu noqon doona markan kaa nawowi horumariyey ka kasoo horjeedaa wuxuu noqon doonaa raafici qowlkii u qaatay ama uu tasxiixiyey wasamaytu waxaan ku magacaabay cumdat asaalik وعدة الناس والله أسأل أن ينفع به إذا dadka ku anfacaan weydiinaya fahuwa xasbi wa nicma alwakiil ka darsi gudihiisa insha allah berri aan bilaabi doonaa maalintaas ku daynayna wa sala allah